10 xaqiiqo oo xiiso leh oo ku saabsan dadka aamusan. Dhammaanteen waan ognahay qofka aamusnaanta badan inuu yahay qof aan wax badan aan sheegin oo inta badan aan dadka u muuqan inuu yahay. Waxaa laga yaabaa qofkaas oo kale inaad saaxiib tihiin ama uu yahay xubin qoyskiina ka mid ah, ama inuu yahay qof aad ku aragto agaarka iyo xaafadda amaba laga yaabaa qofkaasi waa adiga. Laakiin waxaa xaqiiqo ah in bulshadu inta badan u malaynayso in hadalka badan iyo furfurnaantu tahay habka ugu fiican si aad saaxiibo u samaysato oo aad u guulaysato, halka aamusnaantana inta badan loo arko dib u dhac iyo mid bulsho ahaan aan hagaagsanayn. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aad ogeyn oo ku saabsan dadka aamusan oo ka badan inta aad u malaynayso. Haddaba haynu eegno qaar ka mid ah xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan dadka aamusan si aad u fahamto oo wax badan uga ogaato dadka aamusan. Laga yaabaa inaad xitaa ka aragto shay ama laba adiga naftaada ku saabsan. Xaqiiqada koowaad, way fududahay in loo qaato in qofka aamusan yahay mid xishood badan. Inkasta oo tani ay mararka qaarkood run tahay, laakiin had iyo jeer maaha xaaladdu sidaas. Dadka aamusan ma jecla inay dareenka iyo indhaha dadka dhankooda u soo jeediyaan, taasi waa hubaal. Waxaa laga yaabaa inay xitaa iska ilaaliyaan meelaha dadku ku badan yihiin si ay uga fogaadaan dareenka iyo indhaha bulshada inay soo jiitaan, laakiin taasi macnaheedu maaha inay xishood badan yihiin. Waxay noqon karaan kuwo saaxiibtinimo leh, si fiican u fahma dadka oo ku raaxaysta la hadalka dadka kale ee ay ku qanacsan yihiin, inkastoo ay door bidaan in ay wax yar sheegaan oo ay wax badan dhegaystaan. Dadka aamusan ayaa laga yaabaa inay wax badan ka socdaan madaxooda. Laakiin had iyo jeer ma aha kuwo ku wanaagsan la wadaaga fikradahooda ama dareenkooda. Xaqiiqada labaad, dadka aamusan badankoodu waa daacad. Dadka aamusan ma jecla in ay noqdaan kuwo meelo badan ka muuqda si ay u yeeshaan saaxiibo badan. Waxay ka door bidaan tayada marka loo eego tirada saaxiibada ay leeyihiin, oo waxay saaxiib la noqdaan dad kooban oo ay ku kalsoon yihiin, isna fahmi karaan. Markaa u dhowaanshahooda waxay qaadan kartaa wakhti badan sababtoo ah kalsoonidooda waa mid adag. Waxay leeyihiin saaxiibo dhab ah oo aad u yar oo ay la yeelan karaan xiriir dhab ah. Marka inaad u soo dhowaato ood fahanto waa arrin aad u weyn. Dhab ahaantii, daacadnimadu waa mid ka mid ah qiyamkooda asaasiga ah. Waxaa kale oo ay yaqaaniin sida loo xafido sirta oo had iyo jeer daacadday ku ahaanayaan. Xaqiiqada saddexaad, maaha sida aad u malaynayso kuwo mar kasta cadhaysan ama niyad jabsan. Shakhsiyaadka aamusan ayaa inta badan si qaldan loo fahmaa oo ay dadka kale u fasiraan xanaaq ama niyad jab. Inkasta oo ay tani run noqon karto sida dadka qaarkood, haddana run maaha dhammaan dadka aamusan inay yihiin kuwo cadhaysan ama niyad jabsan. Waxay runtii ku raaxaystaan in ay naftooda wakhti la qaataan si ay nolosha uga fikiraan, waxna uga bartaan, waayo aragnimadii hore ay soo mareen iyaga oo aan u baahnayn in ay isa sharaxaan ama ay difaacaan go'aanadooda. Xaqiiqada afraad, way isku filan yihiin oo naftooda aad ugu dhiiran yihiin. Dadka aamusan ayaa inta badan waxay xiiseeyaan inay tijaabiyaan oo ay bartaan waxyaabo cusub. Dadka aamusan way u madax bannaan yihiin fikirkooda oo ay isdhiirigeliyaan. Sidaa darteed waxay u badan tahay inay gaaraan yoolalkooda. Sidoo kale uma baahna qof u sheega waxa ama marka wax loo baahan yahay in la qabto. Waxay door bidaan inay keligood shaqeeyaan sababtoo ah waxay jecel yihiin inay ka taliyaan ayahooda. Intaa waxaa dheer, dadka aamusan waa kuwo male iyo hal abuur leh. Sababta oo ah waxay wakhti badan ku bixiyaan ka fikirida waxyaabo laga yaabo inaysan dadka kale ka fikirin. Xaqiiqada shanaad, inta badan waa dad naxariis badan. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in dadka aamusan ay u badan tahay inay aad u nugul yihiin oo ka naxariis badan yihiin dhigooda hadalka badan. Dadka aamusan sidoo kale waxay awood u leeyihiin inay naftooda geliyaan booska dadka kale oo ay fahmaan dareenkooda iyo shucuurtooda. Sababtoo ah waxay si fudud uga warqabaan dareenkooda iyo kan dadka ku hareeraysan marka loo eego dadka kale. Si kastaba ha ahaatee, tani micnaheedu maaha inay aad ugu nugul yihiin inay u dhaqmaan xanaaq ama si fudud kana xumaadaan ereyada dadka kale. Xaqiiqada lixaad,
maaha kuwa caajisan mar kasta sida ay dadku u maleeyaan. Dadka aamusan mar walba maaha dad caajisan sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay wax ka fekerayaan taas oo iyaga dhankooda u noqon karta mid aad u xiiso badan. Ama waxaa laga yaabaa inay ku raaxaysanayaan aamusnaanta oo ay diiradda saaraan waxyaabaha hareerahooda ka dhacaya. Maadaama ay yihiin dhegaystayaal firfircoon, waxay aad ugu fiirsadaan oo u dhuuxaan sheekada iyo wax walba oo dhacaya. Intaa waxaa dheer, shakhsiyaadka aamusan waxay badanka firfircooni ka helaan oo ay diiradda saaraan hawlaha ay keligood qabanayaan. Waxay leeyihiin xasilooni gudaha ah, sidaas darteed uma baahna inay ku mashquulaan waxyaabaha naftooda ka baxsan si ay deganaan iyo farxad uga helaan. Xaqiiqada 7, aad ayay ugu warqabaan naftooda. Dadka aamusan waxay ku qanacsan yihiin cidda ay yihiin. Iskumana dhibaan si ay isku muujiyaan. Taas waxay ka dhigaysaa inay daacad u yihiin naftooda iyo kuwa kaleba. Sidoo kale dadka aamusani naftooda kama shaki qabaan sababtoo ah aad bay iskugu kalsoon yihiin. Mar walba waxay ku mashquulaan horumarinta naftooda. Sidoo kale waxayna leeyihiin geesinimo ay ku sameeyaan isbeddelka ay rabaan. Intaa waxaa dheer, shakhsiyaadka aamusan waxay jecel yihiin fursadaha ay ku horumariyaan naftooda mid shakhsi ahaaneed iyo mid xirfad ahaaneedba. Xaqiiqada 8, dareen ahaan waa dad aad u deggan. Guud ahaan dadka aamusan ayaa ah kuwa aad u deggan, taas oo macnaheedu yahay inay yihiin dad nolosha ka qaba aragti wanaagsan, waxayna ku fiican yihiin la tacaalida diiqadda iyo xaaladaha adag. Tani waa sababta ay aadka ugu fiican yihiin xakamaynta shucuurtooda. Waxaana awood ay u leeyihiin inay hadlaan marka loo baahdo, sidoo kalena ay u oggolaadaan kuwa kale inay hadlaan markooda iyaga oon carqaladayn. Sababtoo ah waxa ay awoodaan in ay xogta ay rabaan qaataan si dhib la'aan ah, iyagoon markiiba ku boodin dhammaadka hadalka, oo waxa ay dhegaystaan sidoo kale waxa qofka keli leeyahay. Shakhsiyaadkani waxay si fiican ugu wanaagsan yihiin inay wax ka qabtaan xaaladaha adag oo si fudud u xallin kara khilaafaadka. Xaqiiqada 9, way ka dulqaad badan yihiin dadka kale. Dadka aamusan badanaa way ka dulqaad badan yihiin dhigooda. Marka ay xaalad la darsaan waxay badanaa qaataan wakhti si deggan ka hor intaanay la imaan ficil. Sidaas darteed dulqaadku waxa uu sal u yahay awoodda ay u leeyihiin in ay diiradda saaraan oo ay wax qabtaan marba sida ay wax u kala horeeyaan. Dadka aamusan kuma degdegaan waxyaabaha ku cusub taas oo ka caawisa inay aad uga fiirsadaan inta aanay go'aan qaadan oy ka warqabaan waxa ka dhacaya hareerahooda. Natiijo ahaan waxay leeyihiin dulqaad dheeraad ah marka ay timaado wax ka qabashada xaaladaha qaar, sidoo kale aad ayay u yar tahay inay sameeyaan go'aamo degdeg ah ama go'aamo ku salaysan jawaab celin laablakac ah. Xaqiiqada 10, way fiiro dheer yihiin ooy xasuus fiican yihiin. Dadka aamusan waxay awood u leeyihiin inay ogaadaan faahfaahinta iyo xusuusta waxyaabaha yaryar. Sababtu waxa weeye in ay fiiro gaar ah u yeeshaan, u fiirsadaan, oo si taxadar leh u dhegaystaan agaarkooda iyo waxa ka dhacaya. Sidoo kale waxay inta badan xusuustaan waxyaabaha ay dadka kale sheegaan ama ay sameeyaan, kuwaas oo dadka kali aynan xasuusan. Dadka aamusan sidoo kale waa xaliyayaal aad u fiican sababtoo ah waxay ku bixiyaan wakhti badan falanqaynta iyo u fiirsashada xaaladaha ka hor inta aan la go'aansan tallaabada xigta ee loo baahan yahay in la qaado. Haddaba sida aad u jeedaba waxaa jira waxyaabo badan oo qoto dheer iyo kakanaan ku saabsan dadka aamusan. Marka ka faa'iidayso oo baro shakhsiyaadka aamusan halkii aad fikir qaldan ka aamini lahayd. Waxaa laga yaabaa in ay ka badan tahay shakhsiyadooda gaarka ah marka loo eego muuqaalkooda guud. Haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada oo subscribe noo saar janalka si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Mahadsanid.